ma waxaan dhahnaa Mera mise Meta? Maya waa Mera ama Metaverse waana jiilka xiga ee internetka. Our company is now Meta. Ma ogtahay in dunida maanta qayb ahaan ay tahay dhalanteed oo inta muraayado lagu xiro caalam aan jirin lagu geynayo oo aad ku isticmaali karto ciyaaraha ama gameska qaar, waxbarashada, caafimaadka ama kulamada qaar oo aad kaga qayb gali karto hab dhalanteed ah. sidaan hore u soo sheegnayba, Meta waa magac cusub ee shirkadda Facebook lagu bedelay. Facebook marna waa application ama barnaamij gaar ah, marna waxay ahayd shirkad ay hoos yimaadaan barnaamijyada Instagram, WhatsApp, Messenger iyo isla Facebook isagoo application gaar ah. balse hadda barnaamijyadaas oo dhan oo ku jiro Facebook waxaa madax u ah ay hoos tagaan shirkadda magac cusub ee Meta. taariikhda internetka aan wax yar dib ugu laabano. 80maadkii dunida waxaa la isticmaali jiray taleefanada waaweyn sida landline-ka. 90meeyadiina waxaa la isticmaali jiray taleefanada gacanta oo markaas lagu diri jiray fariimaha oo kaliya oo markii ugu horeysay bilowday in telefoon fariin lagu diro. bilowgii 2001 iyo wixii ka dambeeyay waxaa la awooday in internetka lagu xirmo sida Wi-Fi-ga iyo wixii la midka ah. 2009kii waxaa bilowday in internetka lagu isticmaalo taleefanada caqliga oo saaxiibka ah ee smartphones-ka. wixii ka dambeeyay waqtigaas ilaa iyo maanta waxaa la awoodaa in si toos ah ama hab fogaan arag ah aad internetka uga hadlayso qofka aad rabto meel kasta oo dunida ka mid ah. adduunka sidaas ah waxaa dhihi karnaa waa physical world, waa duni dhab ah, waa duni la arki karo lana taaban karo tiknoolajiyada la isticmaalayo. balse Metaverse waa mid ka duwan tiknoolajiyadaas ama adduunka noocaas ah, waana jiilka xiga internetka. The Metaverse, connecting with people. All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi. Mark. What's up, Mark? Metaverse waa waji cusub oo khibrado farsamo ah oo isku xiran ayadoo la isticmaalayo tiknoolajiyada dhabta ah iyo tan dhalanteedka ah. maxaan ka wadnaa tiknoolajiyada dhabta ah ee la yiraahdo augmented reality oo loo soo gaabay AR iyo tan dhalanteedka ah ee la yiraahdo virtual reality oo loo soo gaabiyo VR. waxaan ka hormarno augmented reality oo loo soo gaabiyo AR. augmented reality waa xaqiiqadii jirtay oo wax qiyaali ah lagu daray ayadoo la isticmaalayo tiknoolajiyada casriga ah. tusaale, barnaamijyada ku jira taleefankaaga gacanta sida Snapchat-ka, marka aad sawir iskaga qaado, kaamiradaadu waxay awoodaa inay sawirkaaga ku darto waxyaabo been ah sida san, carab, koofi ama midabka wajigaaga oo ay bedesho. waa wax dhab ah oo la dul saaray waxyaabo dhalanteed ah. u imaaw virtual reality oo loo soo gaabiyo VR. virtual reality waa wax u eg xaqiiqda balse aan xaqiiqo ahayn. waa dhalanteed ama been run la moodo. tusaale, waxaad gashanaysaa oo kiyaalo ama waxyaabahan indhaha iyo wajiga qayb ka mid ah lagu daboolo ee madaxa lagu xirayo. waxaadna awoodaysaa adigoo gurigaaga joogo in goobtaada shaqada ama waxbarashada aad hab qiyaali ah ku tagto. haddaba ereyga Meta xagee ayuu ka yimid? Meta waxa uu ka yimid erey Giriiga oo macnihiisu yahay gadaal, beyond. waa horgalaha ereyga Metaverse oo ah wax ka dambeeya koonka ama dunida aad hadda aragta ee dhabta ah ee physical world. marka aan soo koobno macnaha Metaverse waa isku darka physical world oo ah adduunka la arki karo lana taaban karo tiknoolajiyada la isticmaalayo. augmented reality waa tiknoolajiyada dhabta ah ee la dul saaray dhalanteedka, iyo virtual reality waa tiknoolajiyada dhalanteedka ah balse dhab la moodo. mar la weydiiyay milkiilaha shirkaddan Metaverse wuxuu ku jawaabay The next generation of the internet. Metaverse waa jiilka xiga internetka.